عبد الله عثمان قوليد جيلجري xilal hore ka soo qabtay xukuumadiisa madaxweyne Axmed Silaani ayaa garabkayga bidix fadhiya عبد الله shirkii waxaad ka qayb gashay beeshaada ay ku lahayd deegaanka gacan libaax shirka hadal badan ayaa ka dhashay bal ka waran qodobadii ka soo baxay sadar shirkaasi horta wuxuu la mid ahaa shirarkii ay beelo walba qabsan jireen shir beeshu isugu timi oo la mid ah shirarkii kale shirarkan hadii goraale dadku waxay kor u qaadaan qaybta inta yara siyaasadda reeru wax badan bay ka shiraan reeru markay isu yimaadaan beelu waxay ka shiraan wax badan oo gaar ah deegaankooda ay ka shiraan oo xeerarkii ay lahaayeen bay ka shiraan oo wixii ay ka bedelayaan waxay ku kordhinayaan sidii deegaanka u ilaalin lahaayeen si arrimo badan oo dana ah oo iska kulli badal laga maarmaayo in qabaayil baynu nahay danahooda bay ka shiraan siyaasadda hadii goraale in yar bay ka tahay intii yareedna badideedii waa la wada maqlay qodobadii ka soo baxay dibadda loogu dhawaaqay wax su'aal gaar oo layga weydiiyey mooyaane qodobadii shirka ka soo baxay aanu go'aansanay bay ka mid ahayn way la wanaagsanaan Cabdilaahi Salow Dagsoon waxaad ka tirsantahay xisbigii kulmiye qodobada Suldaan Maxamed oo gabagabadii ka hadlay shirka la socotay wuxuu yiri beeshayadu waxay garab la noqonaysaa labada beelood ku dagaalamaya oo waa go'aan gaarnay deegaanka Celefe sidoo kale waxa ku jirtay boqor Raabiyo isna hadlay wuxuu yiri madaxweynaha Soomaaliland ba madaxweynuhu ma aqoonsanin oo kala u dhigan marka ma qodobadaas raali kaga tahay shirka qodobadaas ma ahayn kuwii ka soo baxay shirka dadaad wareysatay baa kugu yiri guddi baana jirta oo garxajis guddi buu jirtay ayuu isla wada waafaqay muddadana u kordhiyey wixii guddida ka soo baxa marka dibadda la joogo ayaa horta guddida afka ku hadlaysa guud ahaan shirkana lama odhan shirka dawladda lama odhan ma ogolin madaxweynaha ma ogolin lama odhan waabay ku jirtaa dadka lala hadlayaaba madaxweynuhu yahay cabashada loo soo jeedinayay marka go'aanka shirka iyo waraysiga dibaddu waa kala jaad kuwa cidii maartay Suldaan Maxamed anumaan joogay khudbadda aad sheegayso go'aamada kuma jirin anumaan dhageysan Suudaanka marka Suudaanka waxaan ka oran karaya ma jirto laakiin go'aamada kuma jirto tukraqban waxa ku runtii aanu ka wada hadlaynay isaga Suudaanka iyo Salaadiin kalaba statement-ka in lagu daro lagu baaqo nabad oo tukaraq nabad lagaga baaqo sidii ay xukuumadeena iyo beeli kala ugu baaqeen nabadu waa wax dadka dhan baa jecel nabadu waxaynu ku dhaqanno way nabadu wax lagu noolaanayo way marka kuma jirin go'aanada anu Suudaanka maan dhageysan Suudaanka waa Suudaankii guud ixtiraam weyn baan u haynaa laakiin maan dhageysan hadalkiisa laakiin go'aamadu waa la yeedhi wixii ahayn waa la yeedhi go'aamada shirka soo baxay filnaya go'aamadaas iyo recommendation-ka beeshu soo jeediyay madaxweynaha ma yahay inuu fulinayo inuu fulinayo war ma hayo laakiin mid baan garanaya hadday qoys tahay iyo hadday beel tahay iyo hadday qaran tahayba dadku odayaal bay leeyihiin qoyska aabbaha u odaya qabaylka saasoo kala salaadiinta guud iyo madaxda dhaqameedka u odaya qarankana madaxweynaha u odaya madaxweynuhu waa odaygeenii guud wixii wax ku wanaajinayay iyo wixii lagaga cabanayay xukuumadda oo inagu wada matalo waxaan ka rajaynayaa inuu eegi doono wax ka qaban doono wixii gar loo yeesho ilaa beeshu cid lama garramin wali iyadaa wax soo dhigatay wixii ay gar u yeelato wuxuu ku diidan ma arkabaan raaca wixii aan gar ahayna waxa la odhan doonaa gar uma lihidin oo way raaci waay laakiin cid walba danbay u tahay in la isla eego wanaagga wada lahaanshiyaha midnimada ilaalinta qaranka kulligan waa faa'iideyno madaxweynuhu odaygeenii isaga xilku la yaal waa Luqmaan Maxamed Faarax Bulsho TV Hargeysa